بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى أين ولا ليالكم هدينا الله سبحانه وتعالى إنه عافماد قبنا إن سوغار سيه بشي رمضان خير كبدنيد إن بدن أينو إلهي سوى يديسن سبحانه وتعالى إنه سوغار سيه. وحا حقيقة قف كستو مسلمة وإلهي يدارت آخر الرجين إياه إنه آد قلبك وهين جري بشهر رمضان. إلهينا صوبري جري سبحانه وتعالى إن إلهي أسو قليو سبحانه وتعالى وقارسيو وايو وحا وقرانيا إن بشاني أي تهي باللبية طبنكا بلود بشا وفد لقبضان إلهي كرامي كوبية طبن بلود مركي مغناتنا مرون كوي مريسا oo ay xaqiiqo tahay in dadka qaarkood ay u timaado iyagoon adduunka ba joogin. marka qofku wuxuu mar walba ku ducaysan jiray in ilaahay soo gaarsiiyo subxaanahu wa tacaala. haddaba haddii aad soo gaadhay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo gaarsiiyey, weliba ilaahay uu ku karsiiyey inaad noqoto kuwa sooma ee markaa salaada ee qiyaamka u kaca, waxaa laga rabaa mahadnaq fara badan ayaa laga rabaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu ziyaadiyo ayay kuu keenaysaa mahadnaqa faraha badan. ilaahayna wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala, lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid. haddaad ii mahadnaqdaan waad idiin kordhinayaa buu ilahay yihi subxaanah, haddaad kufridaanna cadaabkaygu waa daran yahay buu alla yihi subxaanahu wa tacaala. marka walaalayaal, mahadnaqa waxaa ka mid a in ilaahay kaa arko wixii aad ku ballan qaadaysay, ama kor aad ugu ballan qaadid, ama naftaada adigu un markaad sogaatide wixii aad ku ballan qaadi jirto ah inaad ka fiicnaan doonto ramadaantii hore, tii un baa laga rabaa inaad la timaado. waxay ka mid tahay mahadnaqa ayay ka mid tahay. walaalayaal, bisha ramadaan nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam waa uu u bushaareyn jiray asxaabtiisa. waxaa bishaaraadka ka mid ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu inoo sheegay in bisha ramadaan albaabada jannadana la furo, kuwa naartana la xidho, shayaadiinta maradadana iyaga laftooda la xidho. weliba mid dhawaaqa ayaa wuxuu yidhaahdaa, yaa baaqiya alkhayri aqbil wayaa baaqiya ashari aqsir. kii khayrka rabayow soo qaabil, hada zamaanuka, waa mawsimkaagii. kii sharka rabowna gaabso, ma aha mawsimkani ama bishani ma aha bil uu qofku markaa shar kasbado, ma aha. sidaa daraaddeed walaalayaal, waxaa laynooga baahan yahay 3 arrimood. arrinta koobaad waxa ay tahay in aynu safxa jadiida, xaashi cad aynu furanno, taasoo aynu la furanayno maca allahi tabaaraka wa tacaala, ilaahay jala jalaaluhu, oo aynu markaa ugu ballan qaadayno maadaamuu bishiina soo gaarsiiyey inaynu noqonno addoomo dhab ah oo siduu ilaahay rabay subxaanahu wa tacaala u socda, daahiran wa baatinan, qowlan wa ficlan. daahir iyo baatinba iyo hadal iyo ficilba dad addoomo ilaahay markaasi u khaalisa oo u dhaba inaynu noqonno. oo waxa ugu horeeya inu ka xorowno uu noqdo shaytaanka. waxa labaad aynu ka xoroobaynaana uu noqdo nafta. waxa saddexaad aynu ka xoroobaynaana uu noqdo adduunyadan qalbigeenna ku weyn, oo qalbigeenna aynu aakhiro jacaylkeega ka buuxino, markaasaa wax fiican inoo qabsamayaan. arrinta labaad waxa ay tahay inaynu safxa jadiida wa baydaa aynu la furno maca rasuulina muxamed sala allahu calayhi wasalam, taasi oo aynu ku raacayna rasuulka wuxuu ina faray, wuxuu inaga reebayna aynu kaga harayno, sunnihiisiina aynu qaadanayno. madharka iyo muuqaalka la rabo qofka muslimka inuu u ekaadana aynu markaa yeelanayno. hadday tahay
samtiga wanaagsan ee fiican ee ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa ku jecel yahay rasuulkuna uu ku suntanaa sala allahu calayhi wasalam. waxaynu ognahay rasuulkeena maxamed calayhi salaatu wasalaam naxariis buu ku suntanaa, run buu ku suntanaa, wuxuu ku suntanaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam raxaabata sadri, in laabtiisu ay waasac u ahayd muslimiinta. wuxuu ku suntanaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam cafis ayuu ku suntanaa. marka safxada labaadna waa taa maca rasuulina muxamed sala allahu calayh wasalam, maadaama oo layna faray inaan ku dayanno inaynu isagana safxa jadiida aynu la furanno oo aynu noqonno dad rasuulka ilaahay si dhaba u raacay. arrinta saddexaad aan kusoo gabagabeynaya waxay tahay maca alwaalidayni waalaqaarib, labada waalid iyo qaraabada iyo arxaamta. cidda ugu horeysana waxay tahay marka laga yimaado labadaada waalid ee sababta kugu adduunyada inaad timaado, waxa weeyaan qofka ilaahay mas-uulka kaaga dhigay, haddaad rag tahay ama qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuu qadaray inaad nolosha la wadaagto, haddaad ruux dumaro tahay, iyo caruurta ilaahay idinka beeray, in iyagana safxa jadiida aynu marka iyagana la furno oo waalidkana xuquuqdoodii aynu siino, awlaada iyo zawjadana aynu xaqeegii siino. ilaahayna dhammaanteen subxaanahu wa tacaala haynaga aqbalo kuwii ka faa'iidaysta bishana allah inaga dhigo. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.